faatixadii afka saartay salliga nabiga afka saartay adkaarta iska akhrisatay dee meeshiina salaadii mataqaan ku tukanayna salaad kasta soo gasha inkastoo aanan biyo haysan laakiin meesha waa la buuraysanayay marka markaa buuraystid waa iska niyeysanaysaa salaada meeshaas ku tukanaysaa salaad walbaba sidii aa dhacday marka ilaa maalinkii tobanaad markii laga soo gaaray ayaa waxaa naga dhammaaday biyihii aan wadanay oo saadka noo ahay ayaa naga dhammaaday biyaha qaabka biyaha iyo raashinka doonta loogu isticmaalayana waxay ahayd horta wixii raashin ah ama keeg hadday noqoto ama sokor hadday noqoto ama timir hadday noqoto waxaa noo haysay maamada meesha noogu weyneed oo magaceeda la yirahdo maama ikraan ilaahay u naxariistay ayaa noo haysay mataqaanaa wixii raashin ama mataqaanaa timir ama wixii raashin oo dhan mataqaanaa sheegta maamada noo haysay maadaama qoftii noogu weyneed ay ahayd waxaa kaloo noo soo haray biyihii waxaa noo hayay wiil la yirahdo ayuub oo annaga mataqaanaa nas ahaan doctoorka u naqaano ilaahay u naxariista asna biyihii noo hayay maadaama doonta qaybta gadaal uu ka fadhiyey biyahana aan gashanayna dee meesha kalluunka la geliyo qaybta gadaale aan gashanayna biyaha asagaa marka biyaha noo hayay marka biyaha waxaa la sameynaa marka xilligii ay soo gaarto hal caagaa lasoo bixinaa subaxii hadday noqoto ama maalmihii ugu horeysay waxaan sameynayna laba mar camal cabayna ama subaxii ama galabkii markaasaan labadaas mar aan isticmaalayna maalmihii markay sii dhammaanayeenna dee waxaan biyaha isticmaalaynaa hal mar keliya marka sidiiaana dhacday hal maraa caagi la soo bixinaa hal maraa qof kasta kabanaa waa la isku soo wareejinaa sidii aa ku socotay marka sidoo kaleetana raashinkana waa sidaas oo kaleeto maamada sokorta iyo timirta waxay noqotay qof walba gacanta loogu shubay tabtii ku socotay marka maalinkii tobanaad markii la soo gaaray ayaa waxa naga dhamaaday biyihii markii uu dhamaaday waxaa nagu dhacday marka marba haddii biyihii dhammaadeen dee nin walba mataqaanaa wixii samey lahayd mataqaana nin walba iyo fikirkiisa noqotay dee qof walba markaa banaanka aniga markaan Algeria joognay ama mataqaanaa dee banaanka badda aan joognay dee sidii tiimamka horeeto ku dhacdaba dee waxaa dad qof kasta waxay noo soo sheegeen biyaha badda la cabin biyaha badda waa saas ku noqonay biyaha badda caloosha ku socodsiinaysaa dee qataraha dee biyaha badda kaaga imaan kara hadday cabtida mataqaanaa loo sheegi jiray laakiin marba hadduu aan ku hayo dee waxaa dhag uma dhigaysid dadkii waxay u kala baxeen dad biyaha badda caba iyo dad kaleeto fikir ka duwan keensado oo mataqaanaa dhahay dee biyo bada mataqaanaa biyaha badda dee oon nagama jarayaano oo waxaan isticmaalaynaa anaga kaadidana cabaynaa oo kaadida dadka mataqaanaa caagadaha caafiga ama biyaha ay ka dhamaadeen ay ku shubanayeen kaadidooda mataqaanaa marka ku kaadiyaan kaadidooda isticmaalayeen marka qaybta gadaalay gashanayeen dee biyaha og tahay doonta qaybta biyaha uga soo dhacayaan oo biyaha badda maadaama ay qabow yihiin ay gadaal gelinayeen marka kaadida marka meesha gastaan waqtigeeda kaadida ku cabaayeen dad qaar aa isticmaalaya fikirkaasna dadku kaleetana dee biyaha badda isticmaalayeen marka waxaa dhacday maalinka ku xigay dadkii biyaha badda cabay iyo wixii kaadida cabay intaba marka biyaha badda laakiin qaab farsamada kala duwaneed qofna markasta on uu qabto oo biyaha badda cabaya qofna markii uu mataqaanaa nafta u yaabo oo mataqaanaa oo afka ka qalalmo maadaama ayday xitaa biyaha badda markay cabsido afka xitaa ku qalajinayso laakiin intaa dee wax iska dejiyaa leedahay dee marka farsamadaasaa jirtay dadku inta badan dadkii biyaha badda badsaday dee caloosha laga qabtay caloosha markii laga qabtayna caloosha inay socotay bilowday sidii mataqaanaa dee waxaa la sameynaya dee musqul laga dhiganaya caagadihii aan jarnay oo aan sidii tuunjiga camal aan u jarnay caagada qaar aan sidii tuunjiga camal loo jaray dee wixii raga dee ragga waxa waaye waxay sameynayaan maro oo mataqaanaa cimaamad waxay noqotaba ama busta ay noqotaba isku aadina rag waa rag dumarna waa dumar dee saasaa mataqaanaa dee ragga iyo dumarka loo kala dhex dhigayo dee maradaas dee qof markuu xaajoonayo maradaas u dhexaysa wixii rag waa ragga isla yihiin wixii dumarna dumar isla yihiin marka dabtaasaa dhacday dadkii caloosha laga qabtay dad qaar caloosha laga qabtay dadka qaar marka dee waxaa dhacday maalinkii 11aad 12aad maalinkii 12aad la soo gaaray habeenkii waliba mataqaanaa 12aad soo galaya waxaa dhacday qofkii ugu horeeyay horta maadaama horta maalmahaas waxaa jiray baddu waa iska kacsaneed maalmo badda ay kacsaneed jira aad iyo aad badda u kacsaneed oo hirka xitaa heer wuxuu gaarayay inta nagu dhufto cirka inta noogu yimaado hal mar nagu soo dhacayo biyihii hal guro dhahay biyaha iska bixinayna habeenkii oo dhan waxaa laga yaabaa biyo saa u gurayno anaga dhan ku daalno tabartii nooga dhamaato biyihii waa soo galayaan waa bixinaya hirkii kugu dhufanaya waa bixinaya baddiyaa ku wato adiga dhan mataqaanaa waxaa kugu dhacaya dee shock aa kugu dhacaya frustration aa qaadaysa adiga dhan baddiyaa geeb xaba gees kugu wato biyihiyaa guraysaa wareer aa gelaysaa marka waxaa dhacday maalinkii 12aad markii soo galaysay wiilkii ugu horreeya wuxuu naga qaaday shock intuu shock qaadin koor dee wuxuu qabay wiil waxaa jiray xanuunka macaanka loo yaqaano ama sokorta loo yaqaano qabayaa jiray marka wiilkaasaa sokortii ku kacday
haddana dee sokortii markuu ku kacday cirbadiisa ninkaasna cirbadiisna waa watay oo maxaa ku dhahaa cirbadda sokorta ayuu watay oo isduraya asaga gacantii isku duraya maalmihii ugu horreysay markii dambeetana shoog oo qaaday shoog marka oo qaadana dee waxa waaye waa yarka allah u naxariiste shoog oo qaaday markuu shoogka qaaday dee wuu hadlaa qofku wuxuu ku hadlaa hadaaqi iyo wixii uu ku hadli jiray ayuu ku hadlaa qofka marka wiilkaa dee xogaa ingiliish aan ka xasuusto dee waxa waaye leave me alone iyo waxyaaba badan oo gasta marka ingiliiskii luqadii ingiliiska uu ku hadlayay marka hore tan wax noo sheegi jiray xaggaas iyo Uganda dhanka inuu soo joogi jiray marka ingiliiskii marka soo gatay oo soo gastay oo marna wuxuu dhahay idaafa waa degaya idaafa waa hadallo badan oo mataqaanaa isla dhaafayo oo tuuray marka ninkii marka sidii mataqaanaa ku shoogay shoog lagu sheegayna waa qayb waalida kamid ah dee qofku markuu shoogo wuxuu sameynaa iyo wuxuu qabanayo ma kala yaqaano ninkii sidii ku shoogay markuu sidii ku shoogay dee sidii ninka lagu qabtay meesha waxaa la sameynaa marka qofku waxaan dhigaynaa meesha maadaama doonta laba leen la kala fadhiyo leena geeskas fadhiyo leena geeskan kala fadhiyo meesha dhexda oo qofka lugta xigta ayaa la dhigaa meeshaas qofka la soo dhigaa qofka meesha lagu qabanaa qof walbana dee qofkii u dhow mataqaanaa ama isku meel ay ka yimaadeen ama isku qabiil ay tirsadaan ama isku saaxiibay ahayn dadku waa isku kala dhawaadeen qofku qof oo saaxiib la ahay qof oo xigay qof mataqaanaa dee oo xigay marka qofkii dadkii is xigay dee mataqaanaa aad isku ilaashanayeen doonta dhexdiisa maadaama aniga dhammaan isu ilaashanayeen laakiin dadku aad isku kala dhawaayeen dee waa dareemi kartaa marka taasaa dhacday dadkii u dhawaayay iyo dadkii mataqaanaa saaxiibadiisa meesha ku hayay sidii dhacday maalinkii waa tabareeray maalinkii 12aad asagoo hadleenu noo saarnay marka maalinkii 12aad waxaa dhacday in fikir la soo jeediyo fikirkaas oo ah niyo dadku inta badan waxay soo jeediyeen war dad niyo waxa maraakiibta ay noo badbaadi la yihiin oo nooga socda waxa weeye waa maraakiibta inta badan doominkii hore nagu horreeyay markay saacan ugu dhacdo waa mataqaan dadku u dawaali jiray markay qofku u dabaasho marka qofku dabaalna arkaa bacdeen uu ku badbaadinaa sheekadaas marka la dhaafsado fikradaas la soo jeediyay war masaas ahaa okay yaa dabaal yaqaana la marka waxaa nagu jira dad badan oo dabaal yaqaanay oo kuw ka ahay ciise dooda allah naxariisto iyo wiil kale oo cabdifataax la yiraahdo oo xagga boosaaso ka yimaaday oo reer boosaaso asalkiisa ah laakiin marka dambe Kenya ka yimaaday iyo aniga oo reer xamar ah oo xamar ka yimaaday ayaan mataqaanaa xogaa dabaasha yaqaanay marka inteena marka waxaan dhahnay anaga dabaal waan naqaanaa oo dabaal xogaa mataqaanaa ku soco karno oo nafta ku hori karno waan naqaanaa intiina kale ka waran dadka inta badan dee meel waxay ka yimaadaan dee oo mataqaanaa dabaasha aan laga aqoonin dee ama bad ay ku aalan ama mataqaanaa hadduu dabaashana wax yar oo meelo yar ku dabaashay marka dadka kale waxay dhaheen anaga badda ma geli karna camal marka anagii marka waa suganay tartiib jawi deganaa galnay waxaan dhahnay haye okay marka heer waxa la gaaray xitaa baraaweelo dhaho dee haddii lacala markab la arko dee anaga dham aan degno maadaama jaakad aan wadano dee qofka uu jaakada markuu wato intuu jaakada wato safe uu yahay oosan degayn dee anaga dham aan degno sidoo hal mar aan ka dhexgalay dadka maadaama ehladooda ay raadinayaan hal mar aan dhamaysto horta may war waa wadanaysaa hortii dhageysada fudaadka iska daa hadalka kaama goynayay may wareedha sugday sayid saaxiib kaama goynayay hadalkee waxaan rabaa dadka marka hadda yarkaas korta qabo kale magaciisa hadda xasuusatid ehladiisa inay daawanayaan baa laga yaabaa magaciisana ku dar yarkaas korta qabo magaciisa waxaa la dhahaa Saciid Ookiyaala iyo deegaanku ka yimid hadda xasuusatid waa wiil ma jirteena xaggaas garowga ka soo jeeda wiilkaas la dhahaa Saciid Ookiyaala la dhahaa Ilaahay u naxariisto oo yarka ugu horeeyay oo mataqaanaa yarka macaanka qabo yarka ka sheekeena maalinka 12aad waa noo saarnay soo halleen oo mataqaanaa dee oo barta noo saarnay inteena marka waxaan sameynay dee wax la dhaho dee preparation oo isdiyaarin aan sameynay oo mataqaanaa dadkii dee maadaama dadkii intii ugu horeysay anaga u bilaabnay ciise dhoodhe allah u naxariisto iyo maxaa ku dhahaa iyo yarka kale cabdifataax markaa galay iyo anaga markaan galnay xogaa dabaalanay ayaa waxaa dhacday raggii kale tan nagu soo dhiiradeen dadkii kale soo galeen xitaa yaasiin dadkii dham soo wada galeen xitaa wiil kaleeto xanuunsan aa jiray magaciisa la yiraahdo maasin la dhaho oo maxaa ku dhahaa yarkii tob banaan ku baxay dadkii lala xiray haddana la soo daayay hore aan kugu sheegay yarkaas xitaa waa nagu jiray yarka marka asaga aad yarkaa waa xanuunsanaa asna marka asaga xitaa waa nala soo galo jaakadiisa loo xiray waa la dabaashay maadaama intaas aan bad saarneen 12 beri aan bad saarneen marka waxaa la dhahay bal asna hala soo gala sidii lagu soo dejiyay sidii lagu mataqaanaa aan ugu dabaalay aan ku dabaalan lagu qubiyay kabacdi markaan cambaar dabaalanay meeshii mataqaanaa xogaa farxadii waxa rajarajan ugu soo noqotay sidii lagu soo noqday markaan saa u soo laabanay
bishi maalinkii 12aad habeenkii markuu saa noogu dhamaaday ayaa waxa dhacday maalinkii 13aad waxa dhacday wiilka kale tahay wuxuu dhahay ninka ma dhaqaaqayo ninka ila fiiriye markaas dhaanay war maxaa jiray aman oo markii nagu horeysay markaas warban nala fiiriye dadkii ku xigaya fiiri بعدين أنا مركب حلا ونكمل دقائق هل تشجرين ku bilawnay markasta si fiican u taageernay maadaama qofkii ugu horeeyo naga dhinta oo ahay wiilka Saciid oo kiyaala Ilaahay u naxariistay maadaama qofkii ugu horeeyo naga dhinta oo ahay taageerana ku bilawnay qof walba mataqaana inta gabdhaha aan ka ahayn laakiin raggeena inta badan kabtanada hadeen anaga dhamaan waa taageerana nin walba bulfiir waxaan ka bilaw waxaan taageernay balsiga oo qorta iyo gacmaha iyo wadnaha meel kasta ka taageernay iyo qofku markuu dhintana waxa ku garanaysaa wata wadnihiisa ma shaqeynayo hadana mataqaan wajigiisa wajiga qofku isbedela maxaa ku dhahay indhihi waa mataqaan kor u taagmayaan maxaa ku dhahay xubnihii xitaa gacmaha iyo waxa soo laamayaan qofkii shakli kale too yeelanaya qofku markuu dhinto marka ninkii waa jeegareynay qof walba jeegareysay bacdeena markii dambe la dhahay ninkii waa dhintay ninka bal waa kaasa sidii markaa ninkii waa mataqaan lagu qaatay in mataqaan janaasada lagu tugto la isku duwo sidii la isku duway sidii mataqaan janaasada loogu tugtay sidii mataqaan ninkii mataqaan bad u raacino biyaha mataqaan bad loogu tuuray aan badana mataqaan si raaci oo maalinka 13aad maalinka ku xigay qof naga ma dhiman maalinka ku sii xigay waxa dhacday asna wiilkii mataqaan wiilkii kale too xanuunsanay oo asna oo aan ku dhahay maasin magaciisa maasin oo wiil reela saacad ah xagga laas saacad ku soo jeeda ayaa mataqaan xanuunsanaa asna maalinkaas maalinkii oo wiilka dhintay maalinka ku xigay asna xanuunsanaa marka waxa doonta waxaana la saarnaa wiilka habartiisa asaga ayaa mataqaan doonta la saarneed oo maama Ikraan ayaa ka go'ay wiilya maama Ikraan anayo la too caawinayna ma maqlayaa ما يصير عدو كير أقعي وكقعي هذا وصل نقطة marka maama Ikraan wiilkaas kala tadabta ku heysay marka wiilka maama Ikraan dhabteedu ku dhintay Ilaahay ha u naxariisto asna wiil iska xanuunsanayo ahay markuu dhintay maamada wiil kale waxa la joogay caawinayo mataqaana wiilka u riixay luga u riixay maadaama wiil xanuunsan ahay wiilkaasna magaciisa waxa la dhahaa Yuusuf la dhahaa waa wiil murusada oo ka soo jeedo xagga Muqdisho koonfurta ka soo jeeda marka waxa dhacday markii wiilka uu dhintay maamada yaa markaas waxay dhahday war wiilka waa dhintay wiilka ila jeeg maamada markii wajigeeda aad iyo aad mataqaana isku bedelo maadaama ay ka naxday geerida wiilkeedii mataqaana ay ka naxday wiilka kale taa wuxuu dhahay war ninka waa dhintay ninkan jeegare ninkan la fiiriye sidii oo dhacday meesha la soo dhigay waa la jeegare inuu meediyaha la arkay bacdeen waqti la siiyay waqti qof kasta markuu dhimanayo qofku waqti aan siinayna qof ma lagu degdegeen waqti la siinaya barta la dhigay waqti la siinaya saacado markii ka soo wareegta bacdeen la soo qaado war meedka naga tuura la hadday meedka barkee qof waxa dhacay qof kale taade ku sii shoogay maadaama waa garan kartaa saaxiibka shalay hal meel wada joogteen wax soo cunteen shalayna doonta soo wada raacdeen garabkaaga fadhiyay maantii markii oo hortaada yaala soo meed ah waa dareemi kartaa maskaxdaada waxa gaari kara xanuunka inta leeg oo gaari kara waa dareemi kartaa marka taasa dhacday marka arintaas dhacday marka arinta keenayso meedkan la tuuro arinta weeye marka tabtaas dhacday marka cabaar markuu meedka saaran waxa la hormeedka naga asturo meedka sida lagu mataqaanaa isku aadinay janaasada lagu tukanay marka intii mataqaanaa meedkaas janaasada lagu tukanay waxa dhacay in mataqaanaa kabtankii koowaad ee doonta oo kabtan Maxamed Allahay waa nin Nigerian oo ahay kabtankii koowaad ayaa asna maalmahaas shoog ku jiray oo mataqaanaa shoog qaaday maadaama qofkii la eedeynay oo ahay dadku dhahayeen adaa saas u sababa doonta maxaa xoog ugu waday doonta maxaa saas u sameysay maadaama ninkii lagu qeyliyay jirxun badan la tusay ninkii waa shoogay oo markasta wuxuu dhahay wuxuu dhahay sayid bari gariib oo dhahay marka bari gariib waxa laga wadaa xeebti ma dhowdahay taasoo ku shoogo marka mar walba inay weydiinaa bari gariibta ugu celin xeebti ma dhowdahay oo ku shoogay marka ninkii hal mar istaaga ka dhacay mataqaan fadhiga oo fadhiya oo qofkii oo mataqaan ku xigay oo saas ugu dhacay markii oo soo dhacay kabtankii kale oo kabtan Cali la dhahay asna Nigerian waa maalinkaas maalinkii intee markaas saarintii isla maalinka wiilka maasim uu dhimanayo waa maalinka maalinkee waa maxsuus halka
maalinka tobanaad miya maalinkii 15aad maalinkii 15aad cuntadiina waxayna ka dhamaatay maalinkii tobanaad ma cunto naga dhamaaday biyaha naga dhamaaday maalinkii 10aad biyaha naga dhamaaday midku ugu horeeyna maalinkii 13aad ahay maalinka 14aad qof nagama dhiman maalinkii 15aad waa maalinka kala hadlayo oo wiilka dhintay wiilkii midkiisa soo yaala waxa dhiman doona hadana kabtankii koowaad ee doonta oo kabtan maxamed allahay kabtan Nigerian ahay oo markaas markuu masaasna soo dhacay kabtan kale taa wuxuu dhaawar ninkan la jeegreeyasna sidii lagu jeegreeyasna ninkiina asna meedu ahay marka labadii meed mataqaanaa sidii mataqaanaa janaasada loogu tugtay sidii mataqaanaa la isugu duway sidii badal la dhax dhigay farxiyo hal mar سناهي ماشين هي هالمر محمود قال هورنا قفنا مودكيو كسو بخين قفنا مودكيو كسو بخين سيد علي كسوعو هذلكا tabti aan ugu dhacday marka maalinkaas ay tumaano ku dhintay maalinkii ku xigay qof kale ma dhimano waxa jira maalinkii kale oo isla maalinkii 16aad habeenkeedii waxa dhacday wiil kale oo la dhaho asna haykal la dhaho oo magaciisa haykal la dhaha wiilka wuxuu ka soo jeedaa reelaas caanood oo ahay marka wiilka waxa asna naqas uu qabay wiil aad u jab yar oo ahay dadka jabka yar oo ahay marka asna naqas uu qabay naqaskii ku dhagayay waxa garabkiisa joogay wiil saaxiibkiisa ahay oo asna la dhaho hanad la dhaho oo yarkaas saaxiibkiisa isku meel isku deegaan ka soo jeedaan ayaa mataqaanay garabkiisa ahay marka wiilkaas aad garabkiisa ah marka wiilka naqas qabanayay aad naqas u qabanayay marka yarkaas waxa dhacaysa isla habeenkaas inuu asna habeenkaas oo 16aad oo soo galayso inuu dhinto maalinka 16aad subaxiisana oo dhaho ninkii waa dhintay ninkii la fiiriyay sidii asna lagu soo dhigay sidii lagu jeegreeyay sidii asna doonta lagu tuuray maalinkii ku sii xigay waxa dhacday marka qofkii ku xigay inuu dhintay laba maalin oo maalinkii 17aad 18 inta meeda dhacay marka waxa jirta laba meed marka ilaa hadda aniga maskaxdeyda aan kala saari laahay qofkii soo horeeyay maadaama meedkaas markay dhaceen dadka asxaabta markay dhimashada ay bilaabatay qof walba inay noqotay waxa way qof walba meedka sugo qof walba adaa ku xigtay isdhahay qof kasta shooga in kasta shooga loo kala badnaay oo shooga marxalada uu kala leeyahay stage 1 stage 2 stage 3 kala leeyahay shooga lagu kala badnaay qof walba waa shoogsanaaday adimaa ku xigtay waa geeridu waa falaara cirku dooray qof walba ila filay noqotay qof walba marka meedkaas oo arkaa qofkii waa si jooga asaa marka wuxuu isleeyahay qof walba ku xigtay marka labada qof aan kala saari laahay markuu hay kala dhintay labada qof ku xigtay waxay ahayd waxa waa maxamed shiine iyo gabar la yiraahdo maqsuud cabdiraxmaan maxamed dhaho ilaahay ha u naxariisto labada meed ku xigtay marka labadaas qofkii soo horeeyay aan ilaa hadda kala baxsaneen maadaama aan ku shoogay labada geerida aan ku shoogay marka labadaas geeriya ku xigtay waxa kale oo mataqaanaa maalmihii kale ku sii xigtay markii geeriyaas dhacday oo qofka labada qof ay dhinteen oo marka qofna maalin dhintay maalin qof soo horeeyay ama wiilka soo horeeyay maxamed shiina soo horeeyay ama waxa soo horeysay gabadha maqsuuda soo horeysay labadaas geeri marka waa kala baxsanaa laadahay ilaa waa ku shoogay geeridan ku shoogay ahayd wixii ka dambeeyana geeridu waxay noqotay talantaaliya noqotay geeri istaba joogay noqotay geeri waxay ahayd mataqaanaa loo dhimanayo 2 3 4 4 loo dhimanayo ahayd hal subaxa waxa ku soo kacaysa 3 qof ama 4 qof oo mataqaanaa waa dhinteen la dhahayo mataqaan barta yaalo hal isku duwo ay noqotay marka geeridiisii ku socotay ilaa laga soo gaaro maalinkii ugu dambeysay oo badbaadada maalinkiina la badbaadinayay aniga waxaan la badbaadiyay maalin casraan la badbaadiyay marka waxaan ka soo kala dhaafay geerida intaas dhicin maxamed shiine iyo asaan ku sheegay iyo gabadhii kale oo maqsuud Allah u naxariiste inta aysan dhiman oo haykal maalinka oo dhintay oo maalinka ku xigay ayaa waxa dhacday in shambari anagu mataqaanaa markab la oo markaas dadkii qaar ay dhinteen oo haykal ugu dambeeyay oo naga dhintay maxamed shiine markaas iska tacbaan ahaayeen iyo gabadha maqsuud mataqaanaa markaas naqaska uu qabanayay ayaa waxa dhacday inaan dhahno alla ilaahay hadoo markab naga soo baxo marka anaga nafteena horeeyna waa dabaalinayna sidii ana dhacday waxa anagu maalinka iska joogno waxa dhacday markaba waxa ka aragnay qoraxda marka saa u soo bixisay ama waxa ka aragnay markab meesha ishan u dambayso ayaa markab ka aragnay markabkii markii aan aragnay dadkii meesha saarnaa inta badan dadkii waa gabdhihii waa ooyeen oo gabdhihii waliba siba gabdhaha ayaa waa ooyeen war noo dabaasha meeshii
xalka hadal ay noqotay warnoo dabaasha mataqaana ku celiyeen dadkii mataqaana waa ooyina mataqaana gabdhihii ooynaya markii dambe aniga dee xaaladdu waxay i baday inaan mataqaana dhaho war aniga intii nafteeda horta waa hurayaa dhahay aniga waa baxayaa laakiin meeshaan ku dardaarmo dhaho war lacala haddaan soo laabo waayo dee hooyadii familkiga haloo sheego ninkii waa dhintay hala dhaho lacala haddaa idinka badbaadiyeen sidii aan sameeyey anigaa dhahay mataqaana waxa waaye aniga waa dabaalanayaa jaakadeedaan xirtay sidii aan isku diyaariyey waxaa markay dhahay siduu markaa harayno waxay dhahay maxamed mataqaana wiil la dhaho ciise dhoodhe oo asna dabaasha yaqaanay iyo wiil kaleeto asna markaas xogaa asna mataqaana magaciisa la dhaho cabdifitaax la dhaho ayaa wuxuu dhahay markaa harayna siduu inta annagana dabaasha waan israacaynaa dee meelan kaaga harna ma joogno dabtiyaa dhacay aniga qofka ugu horreeya doonta ka boodaa ahay oo dabaasho markaan saa u booday waxaa iga soo doobooday ciise dhoodha iga soo doobooday cabdifitaaxaan ugu dambeeyey sidii aan ku dabaalanay markii aan sidii aan ku dabaalanay cabaar aan soconay doontiina kasoo dheeraanay ayaa waxaa dhacday dee markabkii wuxuu noo dhaafay dhankaas kale noo dhaafay maadaama markabka aad noogu fogaayo wuxuu meeshii aan ugu soconay maahan dhankaas kaleeta noo dhaafay marka waxay noqotay dantu waxayna bidda dee inaan dhahno dee markabkaana gaari mayno dee markabkaana waana dhaafay u jeednaa korkaasuu sii maray dee asana nama arka dee waa markab meel dheer jira marka dantu waxay noqotay inaan mataqaanaa doonteeni aan ku noqono annagana dee xaaladdu daalin aan ku jirnay oo murqihii waa dareemi kartaa adoo waxaan cunin badiina aa gasho oo dabaalatay murqahana xanuuna oo murqaha oo garabka oo dalta masalka oo mataqaanaa garabka iyo ilaa iyo maxaa ku dhahaa cududan oo muruqa ilaa mataqaanaa cajirada ayaa aan ku dabaalanayna aan xanuunay markaasaan heer waxaan u gaarnay inaan mataqaana xoog waxaan saarnay inaan ku noqono doonteeni aan kasoo tagnay sidii aan mataqaana kusoo dabaalanay cilad kaleetana waa dhacday oo biyihii oo ka imaanaya doonteena xagga doontii aan u soconay biyihii kasoo socdeen biyihii waxay nagu wadaan meel kaleeta nagu wadaan sidii aan mataqaanaa sameynay waxaan mataqaanaa dabaashii mataqaanaa waxaan isku daynay inaan awoodda aan saarno sidaan mataqaanaa ku noqon lahayn oon doonteena aan ku noqon lahayn marka mar walba aan dabaalano cabaar aan soconno nasada marka cabaar haddaa isdhahda naso haddana biyihii kusii celinaya calaa xaal usay noqotaba cabaar saa usii dabaalanaynay oo mataqaanaa juhdi aan gelinay markii dambe ilaahay wuxuu noo saqiray inaan doonteeni haleelno oo marka doonteena markii aan haleelnay dabtiyaa meesha ku mataqaanaa ku tabar beelnay anaga saddexdeena dabaalanay marka meesha ku tabar beelnay maalmo kadibna geerida kalaana gashay oo saa inii sheegay maxamed shiine iyo maqsuudaana gashay ilaahay u naxariisto bacdeenna dee waxay noqotay dee geeri sida mataqaanaa si xadka baxa loo dhimanayo 3-4 subaxii lagu soo kacayo habeenkii dhimanaya dee markaasna tiradii waa mataqaanaa la tiro koobka waa dhaafaba marka waxaa dhacday ilaa maalinkii ugu dambeysay oo maalinkii badbaadada nala badbaadinaya annaga maalin mataqaanaa xilli ilaa galbihii markay tahay ayaa qofkii ugu dambeysay oo naga dhintay qofkii ugu dambeeya naga dhintay wiilkii ugu dambeeyay mataqaanaa anaga indhahana qabtaan oo asagoo xaaladda mataqaanaa xaaladii mataqaanaa oo indha cadeyska ku jira oo qofku nafbaxaayo indha cadeyska qof markuu nafbaxaayo dee agtaada ku nafbaxaayo waa arkaysaa qofku saasoo waa neeftuuraan neefjiiduu bilaaba qofka indhahoo kor taagaa uu qofku meel qabsigu galayaa oo mataqaanaa inuu meel qabsadan ma lahan oo doonta waa dareemi kartaa dee marka qofku saasoo indha cadeynayay maalinka markii ugu dambeysay annagana tabar mataqaanaa aan ku saacidno ma lahayn tabar aan ku saacidno oo mataqaanaa qofka aan ugu tagno ma lahayn annagaan bartay aan saarnayn ka dhaqaaqi weyne labadeena xitaa isla joognay oo maxaa ku dhahaa isxignay oo aniga yaasiin aan xitaa biyo xitaa isku dari karinba marka dabtiyaa dhacday markii casirkii la gaaray xilliga casirka ee ku aadaneed qoraxda ayaa waxaa hal mar anagoo saas mataqaanaa saa madaxa dhulka dhignay oo madaxa dhulka ku hayna hal mar waxaa nagu mataqaanaa wax jug hal mar nagu dhacday sayid caliyo hal mar abo wiilka ugu dambeeyey wuxuu ahaa ciise dhoodho ahaa wiilka ugu dambeeyey ilaahu naxariisto marka maalinkii waxaa dhacday marka hal mar anagoo saa madaxa dhulkan ku haynaa mogta wax kaloo la sameeyo ma lahan habeenkii iyo maalinkii isku mid noo tahay qoraxda waa nagu soo baxda waa nagu dhacda waa nagu soo baxda waa nagu dhacda marka sidii anagoo madaxa dhulka ku haynaa hal maraa waxbaa nagu dhacay marka waxaan dhahay waryaasiino cod hoosaan waxaan ku dhahay waryaasiino war wax nagu dhacay waxaan hirka weyne waxaan maxay taa dhaane wax nagu dhacay hirka weyne markaasna yaasiina xoogaa iga indho fiicnaayo aniga indhihii waa daciifeen oo maxaa ku dhahaa xaaladda ugu sii xumaatay aad iyo aad marka waxaa waaye war yaasiino waxaan mataqaan nagu dhacay maxay ahaayeen aan dhahay
markaas ayaa siina marka wuxuu dhahaa war sidii waan badbaadinayaa sidii doon waay sidii waan badbaadinayaa war waan la badbaadinayaa markaas waa aamin waay badbaadintii xitaa ku sheego aniga marka waxaan aragnaa dad hal mar nagu soo daatay oo Algeria luqadda carabiga ku hadlayaan hal mar nagu soo daatay oo midna horta afar wixii aaday xagga matoorka xaggiisa aaday midna waxa waaye waxa qaybta meydka dhankiisa maadaama anaga doonta waxaan ka saaranahay marka anaga xilli waqtiga waxaan ka saaranahay doonta afka horeeto fooqa horeeto doonta saaranahay doonta wax yar ay kala sareysaa fooqa yarka oo mataqaana afka meesha afka aan labadana saaranahay meydkana wuxuu dhex yaalaa dee qaybta dhexe meydka dhex yaalaa matoorka xaggiisana dee qaar meeda yaala marka afar wixii aaday xagga matoorka furasho ku bilowday midna waxa waa anagoo biyo nala soo aaday oo mataqaanaa biyo nagu qabtay oo mid ka mid ah midna wuxuu aaday xagga meydadku aaday marka meydadkii uu fiiriyo wax nool uu fiiriyo wajeer gareys ku bilaabay bacdeenna wuxuu ka aroorsaday wixii taleefannada gabdhaha mataqaanaa boorsooyinkii gabdhuhu qaateen maxaa ku dhahaa matoorkii furteen anigina biyo xabad biyo caafiya iyo xabad yoogada cabitaanka yoogadka ah ayayna siiyeen bacdeenna ayagoo yaabanoo madaxa gacmaha saaray subxaanallah ayagoo ku haya markii sidii nooga tageen markay naga tageen aniga waxaan ku cod hoosa waxaan ku dhahaynaa اتصل الشرطة بالله عليك اتصل الشرطة عسكرت النوع aan ku haynaa marka sidii aa dhacday asoo wuxuu leeyahay uqsim billah waa inii wacaya ilaahan ku dhaartay waa inii wacaya oo dhaha ninkii marka sidii uu nooga tegay cabaar markay naga maqnaayeen muddo adiga hal saac ku dhow markay naga maqnaayeen ayaa waxaa qoraxda markay sii mataqaanaa sii dhacaysiyo dee xilliyada dee marka 12 meelaha lagu qiyaaso hadda ku qiyaasi karo oo xilliyada qoraxda soo dhacaysay ayaa waxaa noo timaaday 3 doona noo imaatay hal mar 3 doona imaatay 3 doona hadlaysay oo qeylinaysay waana doomankaas waxay naga duubeen marka video badan hadda weliba hadda laga heli karo Facebook page-ka oo mataqaana soo dhigaan doomanka ku halaaba badweynta ama doomanka wasala ama doomanka mataqaana wax ku noqda Facebook caan oo mataqaana page caan oo mataqaana Francisco Jose la dhaho kalameed Martin la dhahaa jira oo Facebook oo hadda yaala oo soo dhigay oo labadeena mataqaana la badbaadinaya ayaa jira marka fiidiyaashaas naga duubeen biyo noo soo tuureen oo ayagoo mataqaana waxa heli karteen fiidiyaashaas ayagoo dhahaya acdiilo mashruub biyo siiya ayagoo dhahaya ayaa mataqaana heli karteen sidii biyo noogu soo tuureenayeen biyaan mataqaana meesha noogu soo yaasiina xogaa marka iga roonaayo iga awood fiicnaayo biyaasi noo soo qabtay markuu beesay marka biyo cabaan iisoo dhiga biyaasi ku cabay biyo marka ku shoognay soo ugu weyn markaasaan mataqaana anigu ugu dhacay oo biyo markii aan cabnay maadaama dee waa dareemi kartaa calool intaas faaruq ahayd biyo markaa cabnay matag aan bilaabay markaan matag badan aan bilaabay dee shoog runta ii yimaaday markaasaa mataqaana hadal aan gashtay hadal aan markaa qof markuu shoogo hadal badan uu sameynaa hadal badan aan sameynaa hadal waa hadlaa heer markii dambe ayaga doomanka 3 doomanka ahay horta doon askarna oo ku jirtay oo doon yar ah laakiin waxay nagu sugeen markabkii Algeeriyaanka ciidamada Algeeriyaanka nagu sugeen ciidamada Algeeriyaanka sidii u yimaaday sidii mataqaana ciidamada Algeeriyaanka anaga nagu qaadeen oo labada lugood iyo labada gacmood inta qabteen sidii nagu qaadeen markabkan nagu saaray dee aniga awood aan ku dhahaaqan ama awood aan isku nuuxin ma lahayn dee anaga sidii labada lugood iyo labada gacmood nagu qabtay markabkan la saaray sidii maxaa ku dhahaa dadkii kale tan meedkana dee waa dareemi kartaa ayaga jeegareeyeen say ku hore u jeegareeyeen ayaga u jeegareeyeen meedkeena doontii mataqaana markabka kusoo dul xirteen kusoo daba xirteen anagana dee markabka gudaha nooga soo geliyey sidii aan ugu soo qaaday markabka cabaar mataqaana marka wuxuu noo maalinta doonta inay imaanayso waa maalinkee intee maalmood sayidow maalinta gurmudka aad helaysaan waa maalinkee maalinka waa maalinkii 28aad waa maalinkii 28aad maalinka noo imaanaysa doonta oo markan la badbaadinayo sidii mataqaana xeebta banaankana la keenay aniga markaa dee waa maraan mataqaana miir daboolmay waaye oon shoogsanay oo marka marna indhaha soo kala qaadaya marna ku noqonayo xaalad halis ku jiray marka sidii aan ugu qaaday isbitaalna la dhigay isbitaalkii sidii ugu jirnay maalinkii isbitaalkana la dhigay waa xasuustaa maalinkii markii isbitaalka markana la dhigay habeenka ku xigay maalinkeeda dee waxa waaye askarta ayaa horta qolka anagana la geeyo qolkana lagu hayay waxa waaye ciidamada Algeeriyaanka aad u ilaalinayeen weliba waxay sameynayeen shiftiyan laga galayay askari